waxay inoo maraysay maalmo kadib waxaa bilowday mashruuca filimka. waxaa ii bilaabatay murug walwal joogto ah iyo heer aan gaaro in raashinkii xitaa kari waayo. siday ahaataba noloshaasi waan iskala qabsaday, iyada wax walbuu qalbigeeda u baahdo kamaan hakran, sababtoo ah nafteyda ayaa ku faraxsaneed. intii ay halkaasi joogtay waxaan ka dareemay xoogaha isbeddel, sababtoo ah waxay halkaasi ku baratay asxaab kala duwan. aniga ma ogaan lahayn, laakiin baaswer email hotmailkeedu isticmaali jirtay ayaan wax walba ka ogaaday. fariimo laysku diray, asxaab kala duwan, run iyo been waxay doontaha u sheegtee. aniga xerigga kalsoonida ayaa gacmaha iga hayay, kaasoo ilahaa adiga ayay dhab kuu jeceshahay, wax kale waa iska hoollanyaro. muddo markay sidaa ku socotay ayaan adkaysan waayey. waan wacay, walaaley maxaa sidaan iigu samaynaysaa? waxaa lagu yidhi adiga waxyaabahaasi waxba kaama quseeyaan ee aniga igu kalsooni qab. waxbo hadalkiiaan idinku daalin. sannadkii 1998 ayay Mumbai ku soo laabteen dhammaantood, waayo mashruuca filimka ayaa u socon waayey. kadib markay imaaday baan waxaan islahaa guur u bandhig, laakiin sheekadu dhan kale ayay isku beddeshay. weji cusub ayaan la kulmay. way iga diiday guur iyadoo leh mashruuca kale ayaan raadinayaa. aniga tii baryo ahayd way iga dhammaatay, laakiin waan iska sabray. waxaa intaasi noo sii dheeraatay da'weyn iyo caqligii oo sii batay. iyada waxay bilowday in rag kale ay la haasaabdo. asxaab meesha degan baa mar walba warka ii keena, laakiin aniga waxaa qalbigayga keliyaa kalsoonidaha burburin. aniga weligay gabar xiriir ma aan la yeelan. waxaan salaan ahayn isma dhaafsan, sidaan u ixtiraamayo jaceylka aan u hayo aash. bilowgii sannadkii 1999 ayaa waxaa u soo baxay mashruuc kale. markaas baan waxaan ku idhi, xayaati, annaga maxaa noo xal ah maadaama aa hadda baxayso? waxay u dhahday wax walba way hagaagayaan. aniga ayaa jawaab ku soo siinayo markii aan tago. meeshii ayaa la tegey. markaa ayaa wada hadalnay. waxaan ku dhahay, haye maxaa jawaab ah? waxaa lagu yidhi, warninyahow war aan ku siiyo. aniga guurkaaga iyo jaceylkaaga hadda diyaar uma ihi. gabar magac rabto ayaan ahay. mustaqbalkaygana uma qalantid. waxaad tahay qof qamricab badan, aan kontarool lahayn. cajabee cajab, muruga badanaa. walaaley 3 sano ayaan isla soconay. aad baan kuu jeclahay, kaamana maalmo ee sidaan ha ii gelin. way igu qosashay, waxayna igu tiri, war wax ma kuu sheegaa ninyahow, dhegdheg naga daa. haddii uu warkayga kugu dhacayo sannadaha i sugaysa waxay kuu ahayd doqonnimadaada. teelkiina waa ligu damiyey. aad baan u naxay. waxaan garan waayey halka aan joogo. waxaan noqday mid tabartii ay ka dhammaatay, islamarkaana jaranjaradii ka dildiloobmaya. waxaa isoo gaaray dhaawacyo fudfudud. naxdintii aan naxay waxaan ku dhowaa inaan dhimarka beelo, sababtoo ah waxaynu ahayn dad farxad ku nool. kama aan filaynin waxyaabahan. waxaa u qaaday jeceyl xaddaaf ah. anigoo isbitaalka ku jira iyo waxaa isoo wacay aabbaheeda oo isku meel joogno. wuxuu igu yidhi, gabadha waxay ku tiri Salmaan u sheeg aniga daacad ayay iga tahay, guurkiisa ma rabo. run ahaantii aad baa qalbiga ugu karay. waxaa jirto walaalayaal, inta dhaawacayga fahmayso, aflagaado, hadalla xunxun iyo waxyaabo badan ay dhahday, laakiin uusan damiirka ii siinaynin in aan halkan ku faagfaago. intaan dadaal samayn karo waan sameeyey, laakiin way ii suurtogeli weysay. mar walba xasuusteeda ayaa ii hortaagan. si aan ku hilmaamo wax walba ayaan u sameeyey, xiriir walba waan sameeyey, laakiin niyaddeedu waxay jirtaa xaggeeda. calafkayga ma aysan noqon, laakiinse waxaan u rajaynayaa in ay farxad ku noolaato weligeedba. मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे।
अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन Salmaan Khan wuxuu ka mid yahay agtarada ugu firfircoon Bollywoodka, laakiin waxaa dhibaato ku haysata xasuus mahadho ku reebtay oo noloshiisa la diristay. Haddii aad tahay qof aadana ah, waxaa suurtagal ah adigoo xabad midi iyo waxyaabo kale ku dilin in aad dhaawac xanakeeyo naftiisa aad u geysato qofka aadanaha ah, taasi oo ka timaada ballamaha jeceyl iyo axdiyada la iskaga baxo. Ilaali qulubta aadanaha ah oo ha ku xadgudbin qof insaan ah sida ku dhacday Salmaan Khan oo kale. तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम।